السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواada barnaamijkeena xoga caafimaad. Barnaamijka maanta waxaan kugu soo gudbin doonaa mowduuc kaasi oo ah waxa la yiraahdo elephantiasis. Elephantiasis waxaan ka hadli doonaa waxa ay tahay, waxyaabaha sababa, siyaabaha lagu garto iyo daaweynteeda iyo talooyin kale oo anfacaya dadka qaba xanuunkan. Waxaa laga yaabaa in mar aad ku aragto wadooyinka dad lagu ay bararsan yihiin labada lugoodna mid ka mid ah ay aad weyn tahay. Waxaad ku arki kartaan sawirada dadkaasi iyo wax si u yaalan. Marka waxaan maanta aan halkan ku soo bandhigaynaa inaan insha Allah taala ka jaahil bixino bal waxa ay yihiin bararka lugahaas dadka galay iyo waxyaabaha sababa. Haddii aan ka hadalno waxa uu yahay elephantiasis, waxa lagu qeexaa inuu yahay in xididada ay maraan habdhiska difaaca systemka ama lymphatic systemka ay gasho wax la yiraahdo filariasis kaasoo ay gudbido kaneecada. Marka magaca ugu badan marka la isticmaalo marka saameyntaas qofka ay ka soo muuqato waa elephantiasis. Waxaa barari kara gacmaha, lugaha ayagoo kala weynaan kara ama isku si u barari kara. Sidoo kale xubnaha taranka ayaa ku barari kara. Dumarka oo kale naasaha ayaa laga yaabaa in ay bararaan. Sidoo kale skinka wuxuu adkaanayaa, waana sababta loo leeyahay elephantiasis oo meeshii maqaarka ahayd oo meeshii wax ku dhaceen iyo eerida wax ku dhaceen u ekaanaysaa maqaarka maroodiga oo kale. Wuxuuna badanaa ku badan yahay dhulka Afrikada oo ku badan yahay. Maxaa sababa marka elephantiasis? Waxaa sababa markii in badan ay ku qaniinto kaneeco, taasi oo wada waxa la yiraahdo larvae. Larvae waxa waaye waa nooc ka mid ah gooryaanada ama roundworms waxa la yiraahdo waaye. Markii ay ku qaniinto kaneecada waxa dhacaysa in ay kugu deedo bahalkaas gooryaankaas roundworm la yiraahdo, dibna uu saameeyo tubooyinka qaada habdhiska difaaca systemka. Marka kaneecadaasi ay larvaha ay kugu shubto kadibna dhiigga u raaco xubinta uu saameeyo, waxa dhacayda marka in ay xirto xubnaha ama tubooyinka habdhiska difaaca systemka. Marka arrinkaasi uu dhaco, xiritaankaasi hore ka dhici maayo, waxay qaadan kartaa wax ka badan sanadooyin ay qaadan kartaa inuu ku sababo dhaawac tubooyinka difaaca systemka. Calaamadaha lagu garto maxaa waa marka? Calaamadaha lagu garto badanaa qofka isku arki karo waa inuu ka arko meel soo buuran ama soo barartay jirka qaybihiisa kala duwan. Saan ka soo hadalna maqaarka ayaa barari kara, xubnaha taranka ama lugaha ama gacmaha intaas way barari karaan. Qofkan dhakhtarka markuu yimaado wuxuu dhakhtarku isla markii fiirinayaa examination u sameeyaa, baaritaan ku sameeyaa xubnaha sidii u muuqdaan. Sidoo kale waxaa la weydiinayaa meel uu aaday dhulkan Afrikada oo Saharaha inuu aaday kale wax la weydiin karo. Sidoo kale waa la baarayaa oo waxaa laga baarayaa gooryaanka la yiraahdo roundworms. Markaas kadib ayuu dhakhtarku ogaan karaa exactly waxa sababay. Ma la daaweyn karaa elephantiasis? Haa, waa la daaweyn karaa. Waxaa loo isticmaalaa daawooyin sida daawada la yiraahdo diethyl carbamazine. Daawadan wuxuu qofka qaadanaa sanadkiiba hal mar buu isticmaalayaa. Badanaa waxaa lagu daraa daawo kale oo ivermectin. Ivermectin iyo daawadaas haddii la isku geeyana ayadoo qudhid waxaa la isticmaalaa sanadkiiba hal mar. Maxaa marka talooyin la siiyaa qofka oon daawooyinkaas ahayn? Badanaa waxaa talooyin lagu siiyaa inuu dhaqo meesha bararan, inuu maalin kasto uu dhaqo qooyana. Sidoo kale uu ka fiirsho meel dhaawaca. Sidoo kale daawooyinka loo isticmaalo meelaha dilaacsan iyo kareemadan uu isticmaalo inuu socdo kale aad baa idan lagu soo jeediyaa. Sidoo kale xubnaha haddii wax bararan ay yihiin lug ama gacan, waxaa badanaa loo soo jeediyaa qofka inuu kor u qaado. Dadka la nool xanuunkan waxay badanaa ka walwalaan xaaladooda caafimaad, ka walwalaan, waana tan keenaysa in dadka xanuunkan qaba badanaa ay soo arkaan dadka inay ka duwan yihiin, sidaasna ay ku develop-gareeyaan waxa la yiraahdo depression ama anxiety. Marka waxaa markaasi laga doonayaa marka qof kasta wixii Ilaahay kuu keenay subxaanahu wa tacaala ku sabarto, ajirna ka xisaabsato biidhnillaahi kariim. Ilaahay subxaanahu wa tacaala jeclaasho uu ku jecel yahay ku imtixaanay. Marka wixii kale dhakhtar iyo caawinaad kalena inaad raadsato. Inta ayaan kusoo gabagabeynaa barnaamijkeena. Waxaan rajaynayaa inaad waxba ka fahantay waxa uu yahay elephantiasis. Maanta kadibna qof wada maraya ama meel aad ku aragto aad garan doonto inuu qabo xanuunkaas, weli u sheegi doontana in xanuunkan la daaweyn karo.